574 ayaa soo xaadirtay fadhigii lagu dooranayay gudoomiyaha ku-xigeenkiisa madaxa dhaqaalaha iyo xogayaha iyo xubno kale oo ayaguna min hal qof ay ka joogeen xubnaha loo codeynayay kuwaasi oo gacantaag lagu meelmariyay waxaana sanadkan loo doortay madaxweynaha in labada sano ee soo socota uu hogaamiyo ururka dhaqaatiirta Dr. Maxamed Yuusuf waxaana uu ku guuleystay codad aad u fara badan oo kamid ahaa codbixiyaasha inkastoo wareeg labaad la aadi lahaa balse uu tanaasulay murashaxii la tartamayay sidoo kale loolanka ugu adag ayaa ka yimid xogayaha guud oo ay ku tartamayeen laba xubnood oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta kuwaasi oo tiro ahaan isu dhawaa codadkooda balse wareegii labaad lagu kala saaray doorashada markay ilaatay kadib ayaa warbaahinta waxaa hadal la siiyay guddigii doorashada qabanqaabinayay ayagoona ka hadlay doorashadan iyo sida ay u dhacday Dr. Maxamed Yuusuf iyo Dr. Maxamed Biday iyo Dr. Cabdinuur waxaa ku guuleystay Dr. Maxamed Yuusuf taana waxay ku dhacday Dr. Biday iyo Dr. Maxamed Yuusuf ayaa tartan cusub wada gali lahaa way isu tanaasuleen iyagoo ku mahadsan marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa Dr. Biday iyo Dr. Cabdinuur waxaa soo baxay gudoomiye ku-xigeenka iyadana waxaa u tartamaya Dr. Saciid Geedi Dr. Shiil iyo Dr. Cibaar tiradii markaan xisaabinay waxaa isu soo hari lahaa Dr. Shiil iyo Dr. Cibaar isagoo ku mahadsan Dr. Cibaar wuu tanaasulay marka gudoomiye ku-xigeen waxaa ah Dr. Shiil xilkii loo baratamahay financialka waxaa ku baratamahay Dr. Maxamed Carabe iyo Dr. Xasan Geedi tiradii aan helnay waxay ahayd tira dheeri kaliya laba ruux maadaama ay yihiin Dr. Carabe wuxuu helay 290 Dr. Xasan Geedina wuxuu helay 272 gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf oo doorashada ku guuleystay ayaa dhankiisa ka hadlay dareenkiisa iyo doorashada siday ahayd waxa uu na tilmaamay in ay sii wadi doonaan shaqada adag ee loo igmaday doonaan waxa uu sidoo kale sheegay in ay hore u sii socodsiin doonaan maadaama haatan ay la wareegeen maamulka waxa mahad leh guddiga oo doorashada oo si nadiif ah oo hufan oo qeyro ku jirta u soo shaqeeyay annaga waa dadaalnay discipliinka waa dhoornay waa wada shaqeynay wixii waa noo tooseen maanta waxaana loo doortay xilkan aniga markii labaad waaye laakiin hal waxaa idinka ballan qaadaa awal labadii sano iyo labadii sano kaloo zaa'idka ahayd wixii aan soo marnay wax waa qabanay laakiin markaan intood wax weyn oo la taaban kara inaan qabanno labadan sano waxaan rajaynaa maanta 14 waaye 13 September 2020 inaan soo wareejino oo aan rajaynaynaa inay bisha September isla bishaas ay doorasho dhacdo oo guddi cusub lagu doorto guddigan waa dadaali doonaa waxyaalo badan oo qabyo ah noo jiray oo aan sameeynay qabyadii waa buuxinaynaa wadooyin cusubna waa furaynaa maanta marka niyadiina qeyr u sheega dad aan wada shaqeyn karno waa la doortay si fiican baan u wada shaqeynaynaa waa kaas dadaalkaasi inta nagu ogtihiin